wararka naga soo gaaraya qaybo kamid ah gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa ay ku waramayaan in gudoomiyihii tuulada Cadayga Cabdulla Xasan Xaaji iyo ku-xigeenkiisii Cilmi Qooje Xasan la dilay xilli ay ku sugnaayeen gudaha tuulada Cadayga ee duleedka deegaanka Qalimow ee gobolka Shabeellada Dhexe. ka hor inta aan la dilin mas'uuliyiinta goobjoogayaal ayaa telefishinka codka bariga Afrika u sheegay in rag hubeysan ay habeennimadii xalay ahayd ay deegaanka Cadayga ka kaxaysteen labada mas'uul isla markaana ay ku toogteen meel banaanka ka ah deegaanka iyagoona intaasi kadib iskaga baxsaday goobta. dadka deegaanka qaarkood ayaa waxa ay sheegeen in ilaa hadda aan la ogeyn dadka ka dambeeyay dilka loo geystay Allah u naxariistay gudoomiyihii tuulada Cadayga iyo ku-xigeenkiisii isla markaana ay aad uga naxeen. ciidamo ka tirsan kuwa amniga gobolka Shabeellada Dhexe ayaa goobtii uu dilku ka dhacay ka sameeyay baaritaano xoogan walow aysan jirin cid ay u soo qabteen. mana jirto ilaa hadda wax war ah oo ka soo baxay maamulka degmada Balcad oo ku aadan dilka loo geystay mas'uuliyiinta deegaan hoostiga Qalimow ee gobolka Shabeellada Dhexe. xarakada Al-Shabaab oo badi geysata weerarada noocan wali wax war ah kama aysan soo saarin dilka loo geystay mas'uuliyiinta tuulada Cadayga. ciidaha rasmaagane wararka laanta afka Soomaaliga ah ee codka bariga Afrika Muqdisho.